وعبرشة من كسلابتنا رجعليه بهالك الصحة حافظها كنا ورقة كبعدين سوق مالجيا وقتها كوسا مجا كنيك يداوي قلك وحس أمكو قتها عمر محمد حسن waxa uu markiisii hore ku noolaa miyiga magaalada Kismaayo balse danta ayaa u run sheegtay oo hadda waxa ay duruufo adag oo isbiirsada oo nololeed ay ku haystaan gudaha magaalada Kismaayo waa xaafidul Qur'aan kor ka xifdisan 114 aayadaha Qur'aanka Kariimka qowlkii Allah waxa uu lugihiisa ku waayay arin cajiib ah kadib markii uu habeen dhan ku dhaxbariyay dab loo shiday xoolo oo uu islaha xaabo ku dar si uu u qoxo dabka balse isagii ayaaba ku korsuuxay oo xaabo u noqday dabkii waxa uuna la galay qaarka dambe ee jirkiisa gaar ahaan labada lugood wiilkan dantu ciishay qoyskiisna yihiin reer miyi waxa uu kala qaybiyay waqtigiisa mar uu barta farsamada gacanta markuu ka soo baxo iskoolka oo ay qorraxdu kulushahay ayuu wadooyinka iyo goobaha maqaaxiyaha magaalada Kismaayo ka dhex raadiyaa qajaclayaasha biyaha laga dhameeyo si uu 2,000 oo shilin Soomaali ah uu kaga siisto haweenka caanaha iibiya waxa uu ii sheegay inuu ka iibsado lacagtaasi dawada suuxtimaha inta ka soo hartana waxa uu ku bixiyaa haddii ay u gadmaan baabuur raaca iskoolkiisa waxa intaasi oo dhan ka sii daran walaalayaal Cumar si uu soo aaday iskoolka waxa uu soo gudbaa buur dheer oo dhabtii ay ku adag tahay xitaa maristeeda dadka ay laxaadkooda u dhameystiran yihiin balse isaga uu si adag oo dhib ah subaxii uu kaga sii dego duhuradiina uu ku soo fuulo waliba isaga oo sita buugaagta waxbarashada iyo qajaclayaasha maalinka uu soo helo si uu guriga ugu nadiifiyo kadibna suuqa uu ugu celiyo dhabtii waa halgan nololeed oo aad u adag oo uu wajaho wiilkan dhalinyarada ah oo la yiraahdo Cumar kuna nool magaalada Kismaayo waxa uu ka yimid hadda oo aan soo galnay gurigiisii waxbarashada iyo qajacla aruurinta kadibna qajaclayaasha ayuu sifeynaya kadibna waxa uu dib ugu celinayaa suuqa marka la gaaro xilliyada galabkii waxa laga siiyaa ku shilin ilaa 2,000 daawada sida lacagtaas oo uu sheegay in uu ku maareeyo noloshiisa isla markaana uu kaga raadiyo kaniinka xanuunka loo isticmaalo qalalka oo mararka qaar isaga ku soo kaca waxaan wareysan doonaa noloshiisa iyo dhibtan sida ay ku gaartay lugahan waa u jeedaa sayhi waxaan ku noqday waa dib xoolo loo shiday qalal asuu qabtay dadkii maqraba galay subaxa laga bixin maxalliga waa bulaxad meel dhahaa oo taqtar asdu لويه من ده تقدر تقدر وعلى ساق اسمها باركين أدوها لغوا مرير بالي لا لو ده حمر الوجه وهذه أبيه البادية يوكا وحبا أبيه وأن دولا لقر وذا كرانتي وحسبه قاعد بوا ماك واكا المهن وعرفت مرمها داير ده تورنا بل أن كمرة ملحب كوس الجواب وكوبر كود اسكو قصلا واحد عندي إنه arkaan lugaha maxaa ka daaray waxa isdhaxay oo mugisku arkaan kuma hatay ku furudeen dhagti ku saxab ku jahwarina aragti waa bax buugtu baa qaadan waxbarasho markii salaabtan rajaclيه bahalka saxaana xaafada keena waa dhaqa ka bacdin suuq maalgeeya waa gagata kuwaas maga kaniinka iyo daawada qalka waxaas aan ku gataa lugaha adii lugaha waa go'an shay lugaha si fiican loo nooliyay اللغة هذا ماتي اللغة عاقة اللي قلنا وأجعل لها إن شاء الله اللغة اسمها وارب لها وحبرشن وأسكج على لها أنا وحنبرته قولنا ولي وناقم وقوسنا حتى كتب إليه وارجنا إن شاء الله فلينظر الإنسان مما خلق مما دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصد إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمنهم رويدا رجعليها لما أذى بابوره وحالس نن إسدها ملا نك عريان كحل نمبودي بابور كان نمبودي بابور كان نمبودي دينا حقوق عدها ملا كوبا محاوى هذه جن اسم ما أنا ما أشي وحماس أنا ما أشي كوبا حسن ما زجار ولا
waxaan rajaynayaa inaad soo daawateen muuqaalka wiilkan yar ee dhibta iyo duruufta adag wajahayo. waxaan dhihi lahaa qofna gaar uma yeelan dhibta iyo rafaadka, balse waa imtixaan adduunyo oo eebbe addoommadiisa ku imtixaanayo, laguna eeganaya sida ay isaga garab siiyaan. maanta wiilkan Soomaaliyeed ee duruufta adiga ku jiro wuxuu inooga baahan yahay dhabtii garab istaag walaalnimo si uu uga baxo noloshan adag.